shirka hadda halka lagu soo gabagabeeyay wuxuu ahaa shir muddo laga soo shaqeynay shirkan waxaa soo qaban qaabiyay dawladda Ingiriiska midowga Yurub bangiga adduunka hay'adda lacagta adduunka iyo Soomaaliya shantaas isugu nimi la soo qaban qaabiyay waxa markaa lagu cazumay oo ka soo qayb galay wadamada deymaha ku leh wadanka iyo ururada waaweyn sida bangiga adduunka hay'adda lacagta adduunka bangiga Afrika hay'adda lacagta Carabta bangiga Islaamka iyo dad kale fara badan waxyaalaha looga hadlay waxay ahayd maadaama aan ku jirno gabadii ama qaybtii ugu dambeysay arintii deyn cafiska Soomaaliya in aan fiirino bal dadka deyntan ugu leh meeshii taagan yihiin waqti maadaama soo dhawaaday xaaladoodu waxay tahay iyo inay dawladda deynta la cafinayaan kale sidaad ka aragteen qolo walba hadashay waxay cadeysay marka hawshan soo dhamaato inay diyaar ka tahay inay nagala hadlaan deynta si lagu dhameystiri lahaa cafinteedii marka arintaas ku saabsanaa ra'iisul wasaaraha ka hadlay oo si faahfaahsan uga hadlay talaabooyinka la soo qaaday isbedelada wadanka laga gaaray dhinaca maamulka maaliyadda dhinaca amniga shaqada hadda ku socota iyo waxyaalo fara badan oo dhaqaalaha wadanka ku saabsan aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay dawladdan waa lagu ammaanay oo aad maqlaysaan urur walba iyo wadan walba hadlay aad iyo aad u taageeray oo u ammaanay shaqada wadanka ka socota iyo talaabooyinka dawladda qaaday arrintan ku saabsan waxyaalaha ugu weyn ee la ka rabo hadda noo haray waxa weeye lixda bilood soo socota in sidaan xukuumadda hawsha ku socoto dib looga noqon in la dagaalanka saboolnimada istiraatiijiyadda dawladda kala ahaan lahayd iyo qorshe qaranka sagaalaad oo isku jira oo dhameystiran la dhameystiro sanadkan iyo in dadku sidan oo kala wadamada deymaha ugu leh la wargeliyo oo loo sheego xaaladda markasta marayso bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka shirkooda dambe ee isugu yimaadeen dadka xukuumada boardka shirkooda halka marka go'aankii lagu qaato go'aan qaadashadii baa soo dhawaatay go'aan qaadashadaasina waxay noo furaysaa albaabo fara badan oo wadamada hadda arkaysan Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Faransiiska wadamada waaweyn oo dhan lacagaha nagu lahaa kulligood ka hadleen meesha yiraahdeen go'aankaas aan qaadan doonaa haddii aan leedmo go'aanka marka la qaato marka waxa noo furmay xiriirkii aan la macaamil lahayn adduunka iyo hay'adahan waaweyn bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka oo marka noqon lahayd Soomaaliya wadan si loo siiyo marka wax la yiraahdo creditkeedii dib loo hagaajiyay ama deyn cafiskii deyn loo ogolaan karo hadda wax ka dambeeya marka processkaas aan bilowday oo gabagabadii bisha akhirkeeda waxaan ku heshiin doonaa lixda bilood soo socota si loo wada shaqeyn lahaa si loo dhameystiri lahaa shuruudaha inta dhiman sharciye waxa jira la rabo in baarlamaanku ansixiyo dhowrka sharciyo shuruudo ah Soomaaliya deynta loo soo gabagabay deyn cafiska dhowrka sharci oo sharciga inta dhowr ka mid yahay sharciga maamul maaliyadda ka mid yahay sharciga cashuurka ka mid sharciyo noocaas oo dhowr ah ayaa shuruudo ku jira inta kale waxa way laga heshiiyay la dagaalanka saboolnimada iyo qorshaha qaranka la qorona hawshiisa waa socota wada tashiga wadanka oo ka socda marka meel fiican maanta maalin weyn baahayd wax fiican baa la qabtay laba sano ka markii la bilaabay dadku xataa ma arkeen arrintan macquul ka tahay Soomaaliya sanadka hor dadku xislaan Soomaaliya heerka ma soo gaarayso maanta waxa la taagay in la yiraahdo loo hambaleeyo dawladda aad iyo aad ku hambaleeyna waa wadamadii deyn cafiska soo maray wadanka ugu degdegsiyaha badan si loo deynta looga cafinayo ama ka soo baxay shuruudihii oo dhan ka soo baxay 18 shuruudood ayaa hadda ugu dambeeyay sanadkan 18 shuruudood kulli waa ka soo baxay bisha saddexaad 13 kan alkar waxa bilo soo socda waxyaalahan kooda hal lahayn ayaa socda tiina waxa weeye waa bishan ku heshiin hadaalad ma akhirkeeda waa dhamaatay markaas hawshaas waxa la gaaraya waqti go'aan qaadashadii hawshan sidaan u wadayna dadaalkan waa si laba laabeena waxay doonayaan in laga wada hadlo sidii bal deyn cafiskii processkii Soomaaliya waxaan sameyn lahayd ka bacd lacag bangiga adduunka maqlaysa lacag 140 milyan ay yiraahdaan siinayna hadda sanadka lacagta hay'adda lacagta adduunka waxbay soo wada wadamada deymaha ugu leh markii deynta cafiska la gaaro waqtiga dhamaado sanadkan insha Allah inta ka hadhay in marka ayagana furmaan leeman cusub oo wadanka dhaqaale loogu raadanayo marka runtii meel wax fiican baa socda